wound. Dhaawacu waa marka maqaarka iyo nudayaasha jirka uu jeexmaan ama jug halis ah ay gaarto, waxaana loo yaqaannaa laba qaybood oo kala ah: open wound iyo closed wound. Marka jirka dhaawac soo gaaro, waxaa loo kala yaqaannaa open wound iyo closed wound. Sidoo kale waa dhaawac ka dhasha tooreyda rasaasta, markuu soo marayo. Dhaawaca wuxuu leeyahay mid gudaha laga tolo iyo mid banaanka laga tolo. Open wound iyo closed wound waxaa laga wadaa open wound midka dhaawac furan iyo closed wound dhaawaca gudaha iyo midka banaanka waa loo fasiri karaa. Wanaagsan in lagu daweeyo isbitaalada. Waxaa wanaagsan in isbitaalada lagu daweeyo, waayo waxaa suurtogal ah in uu yimaado dhiig-bax gudaha ama mid dibadda ah. Haddaba, dhaawaca qaba in si degdeg ah ugu gudbi isbitaalka. Open wound lagu sharaxay. Open wound waa marka meesha dhaawacu gaaray ay furan tahay, waxaana wanaagsan in loo sameeyo gargaar isla markaana dusha laga saaro faashad. Maro nadiif ah ama iyadoo laga cadaadinayo inta laga geeyo goob caafimaad. Marka waxaa laga wadaa marka meesha dhaawac soo gaaro, boogta soo gaarto, waxaa laga rabaa inaad maro saarto meesha oo dhiig ku celiso. Qaabka hore aan soo mari jirin waxaa waaye dhaawacyadana loo celiyaa. Meesha maro waa la saaraa, maradaas dhiiggii ka dhuuqay, isbitaalna hore ka geyso loo baahan yahay. Closed wound ayaa sharaxaynaa markaan. Dhaawaca xiran waa marka dhiiggu ka soo baxo hab-dhiska dhiigga wareega, markaasna uusan dibadda u soo bixin. Marka la leeyahay waa qofka dhiiggu ku kororo marka la leeyahay aan gudaha u galay. Dhaawacaas waxaa la dhaawac oo xiran close, macnaha ma furno gudaha dhiigga uu soo daadaya. Qofta juuga gaartay, meesha oo jugtay ka gaartana qofta meesha way barartay ama meesha ma dilaacinba, jugtuna way gaartay. Dhaawac wuu jiraa, dhaawacaasna ma sameynin mid maqaarka dilaacinayo. Marka qofka wax dilaaca lagu dhiso dilaaca maahan, jug xoog badan qofta ku dhacday. Dhiigga marka gudaha u galaa, dhaawacna guduhu noqdaa. Kor haddii laga fiirsho qofka waaba caadi, gudaha haddii loo fiirsana qofka waxaa waaye dhaawac. Dadka qaar u dhintaba
dhiigga ku gorora soo maa dhiigga ku gorora kala waa dhimaa marka dhaawaca oo gudaha u furma kaasaa daran daaweyntiis kan kale waa iska fududyahay okay waxaan gelaynaa markaan infection wounds waa marka uu dhaawacu dhaafo 24 saac iyo in ka badan isla markaasna uusan helin daryeel wanaagsan dhaawaca 24 saac meeshan daaweyn ay helin ama tulin ay helin meesha waxaa ku dhacaya cudur bacteria ku aruureyso infection meesha boogay noqon kartaa qofka waxaa laga yaabaa inuu dhinto gargaar oo markaasna weynaado faafo weliba waxaa ugu daran dadka sokorta iyo dhiig karka iyo waxaas qaba dhaawacaas waxaa waaye halis ugu naqaa waxaa laga yaabaa inay u dhintaanba okay gargaarka loo fidiyo dhaawaca ku dadaal nadaafadda meesha dhaawaca ah 2 ku xir maro ama faashad nadiif ah meesha dhaawaca ah 3 shaygii wax muday haddii uu jirka ku jiro lagama saaro qodobka 4 haddii aan meesha dhiig socon ku nadiifi alcoholaas waxaa meesha waa nadiifisa alcoholadan waxay ku jirta waxyaalaha daraagiska teeda kale alcohol haddii la cabo dhibaatay kuu geysanaysaa laakiin sidaa wax ku daaweynaysid caafimaad ay leedahay bacteria way dilaysaa laakiin adoo caafimaad qaba haddaa isticmaasho jirkaaga dhibaatay u geysanaysaa ama iodine iyadana sidoo kale jirka lagu daaweeyaa number 5 haddii qofku uu ka dhaawacmo xiidmaha ama caloosha xiidmaha waxaa loo yaqaana caloosha ha isku dayin in aad ku celiso soo qaado faashad faashadaan soo qaadanaysa oo nadiif ah oo dusha ka saaraysa faashada nadiifka dusha ka saaraysa hana siin wax cunno ama cabitaan ah qofka cuntada iyo cabitaanka waxaa loogu diidaa inuu jirka oo shaqeeyo oo xawaariisii bato oo dhiigga ku bato oo wadnaha iyo jirka shaqadiisa oo bilaabo jirka hadduu si xawaaro laha ku shaqeeyo mar walba meesha waxaa waaye way isgaarsiinaysaa macnaa jirka markuu cunto iyo wax soo gala energy soo gala shaqadiisa waa laba jibaarinaysaa marka dhaawacaas shaqadii soo gaarayso dhiig saasoo ku baxa marka dhiig baxa imaanaya marka haloola socda cashirka